marka koowaad magacayga waxaa la yiraahdaa Najma Farxaan Maxamuud ku nool magaalada Gaalkacyo dhalinyarada hadda ku dhex nool ama wax ka soo curisa magaalada ku dhex sameeyay barnaamijyo haddana masterka ardada masterka diyaarisa e-line ku diyaarisa online ka jaamacadda master ee Unituna University dalka Talyaaniga buugaygu horeeyay waxaan bilaabay 2002 waxaa la dhihi jiray waajibaadka waalidka ardayga iyo macalinka wuxuu ka hadlayaa relationship-ka u dhaxeeya waalid arday iyo macalin waxaana soo bandhigay 2014kii bilowgiisii meelahaas buugayga waajibaadka waalidka ardayga iyo macalinka wax badan baan uga hadlay waxaan uga hadlay ilmuhu markuu dhasho ilaa iyo markuu jaamacadda gaaro oo qaan gaaro waxyaabuhu uu sameyn lahaa inta u dhaxaysa sidii isaga iyo ardayga isku fahmi lahaayeen ardayga iyo macalinka isku fahmi lahaayeen macalinka iyo waalidku isku fahmi lahaayeen iyo asaga iyo saaxiibadii si relationship-ka u ilaalin lahaayeen relationship-kooda iyo si ayaguna u dadaali lahaayeen waajibaadka waalidka ardayga macalinka waxyaabo badan baan uga hadlay waxaan uga hadlay ardaygu siduu u noqon lahaa qof arday ah oo tayo leh oo aqoon leh oo soo baxa sidoo waalidkiisa iyo macalinkiisa uga qayb qaadan uga aqoon qaadan lahaa ama uga dambeyn lahaa waalidkii oo kala gaar baan ula hadlay si ilmahooda la xiriir lahaayeen ama macalinka ardayga ula xiriir lahaayeen buugga waajibaadka waalidka ardayga macalinka wuxuu ka kooban yahay 204 page daabacaadiisii labaad baan soo sameeyay isla sanadkan buugga waajibaadka waalidka ardayga macalinka waxaan kaga hadlay caqabadaha waxbarashada waxaa kamid ah tahriibka waxaa kamid ah qaadka waxaa kamid ah qabyaaladda waxaa kamid ah aafada internetka waxyaabahaas oo dhan baa kamid ah waan kaga hadlay buuggan kale waajibaadka waalidka ardayga macalinka waxa ugu dhaliyay xiriir la'aanta ka dhaxaysa waalidka iyo ardayga iyo macalinka waxa arkaysa waalid ardada dhexdooda ku dilay ama iskuulka dhexdiisa ku dilay ardaygii taas ay ugu dhalisay inaan wadada toosan aan tusno aan istusno waalidka ardayga iyo macalinka maadaama dhibaatooyin badan jiraan waxa kale oo jira buug la yiraahdo cuntiyo caafimaad oo isna aan bilaabay 2014kii aan soo bandhigay 2016kii 2016ka soo bandhigay labadooda waxaan ka sameeyay daabacad labaad buugga cuntiyo caafimaad isna wuxuu ka hadlayaa buugga cuntiyo caafimaad cuntooyinka qado quraac casho macmacaan iyo sharaabyo markii inta laga soo kaco wuxuu ka hadlayaa cuntooyinka caruurta waxaa jira waqti markay ilmuhu dhashaan 6 months-ga ugu horeeya breastfeeding-kii baa ilmaha si toos loo siinaya naas nuujinta marka 6 bilood uu ka ilmuhu dhaafo waxaa la waqtiga weaning-ka baa la dhahaa oo ilmaha la quudiyo waxyaabaha cuntooyinka loo bilaabi lahaa buugan ku qornay sharaabyada la siin lahaa waxaa kale oo buuga uga hadlay cuntooyinka dhiigkarka iyo macaanka cuntooyinka jiimka waxaan uga hadlay cuntooyinka aroosyada waxaan uga hadlay cuntooyinka imtixaamaadka waxa ardaysa arday imtixaan galaya oo maskaxdiisu wax badan ay qaadanayso markuu ardaygu wax akhrinayo imtixaan akhrinayo pressure weyn baa saaran marka bariiskii baastada la siinayo ma deeqayaan maskaxdiisa maskaxdu waxa ugu badan bay qaadanaysaa in rajooga badan marka wuxuu u baahan yahay cuntooyin aan bariis iyo baasta ahayn in la siiyo looguna dadaalo marka ardayga cuntooyinkiisii baa ku qoran waxaan igu dhaliyay cuntooyinka markaan arkay Soomaalidu cunayaan subaxii tusaale ahaan waxaan cunaa canjeelo duurkiina waxaan cunaa bariis ama baasta habeenkii dad baa waxay ku cishtaan bariiska baastadii marka si loo yareeyo cuntooyinkaas oo cuntooyin carbohydrate cuntooyinka hadda cuno qofka boodigiisa ama jirkiisa wuxuu u baahan yahay inuu cuno cunto dheelitiran oo proteins minerals iyo carbohydrate kulli ay isku wada dheelitiran yihiin marka ma haysano cuntooyin noocaas dalka way yeelaan laakiin ma naqaan sida loo sameeyo ama aqoon badan keenu ma lihin marka taas ay ugu dhalisay inaan qoro waxaa jiray barnaamij la yiraahdo haldoorka hablaha iyo hayaanka nolosha oo ahaa barnaamij igu dhashay 2017kii bishii 6aad meelahaas buu igu dhashay bishii 8aadna barnaamijkan waxaan ku sameeyay waa hirgeliyay barnaamijka haldoorka hablaha iyo hayaanka nolosha markii ugu horeysay waxaan qabtay bishii 8aad 2017kii 11keedii baan qabtay waxaan uga hadlay maalintaas cuntooyinka guryaha noo yaal oo aan la isticmaaleen oo hablahan isticmaaleen barnaamijka waa barnaamij loogu talagalay gabdhaha kaliya inay gabdhana soo jeediyaan gabdhana ay dhigaystaan oo wax wiil uusan soo galin meeshaas marka maalintaas waxaan ka hadlay waxbarashada waxaan ka hadlay waxyaabaha qofka hamigiisa ama gabadha hamigeeda kor u qaadaya barnaamijka haldoorka hablaha iyo hayaanka nolosha qaybtiisii labaad waxaan qabtay bishii 12aad waxaan ku casuumay mahad ka gaartay Faadimo Axmed Gaashaan iyo Caasha Geesdiir
oo runtii barnaamijyo ayaguna qiimo leh ka soo jeediyay meeshaas oo ahaa barbaarinta ubadka iyo hoggaanka wanaagsan aniguna waxaan ka hadlayay caabuqa ku dhaca dumarka gaar ahaan xubinta taranka caabuqa ku dhaca baan ka hadlayay marka barnaamijkaas yani waxa ka soo qayb galay boqolaal gabdhood waxaana ka faa'iideystay oo su'aalo nagu weydiiyay boqolaal kale gabdhood waxaan rajaynayaa insha Allah barnaamijkaas inuu sii socdo waxaan rajaynayaa barnaamijkaas waxaan la hiigsanayaa meel fiican inuu gaaro insha Allah oo gabdhaha yani PhD holderska oo Soomaalida ah intaan uu ku casuumo in yani madal weyn oo soo gabdhaha Soomaaliyeed dhan lagu qabto uu noqdo insha Allah waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada haday noqdaan dhalinyarada inay akhristaan buugta yani kor u qaadaysa hamigooda gaar ahaan buugayga waajibaadka waalidka ardayga macalinka markaan ka hadlayay qaybta waxbarashada gaar ahaan waqtiga jaamacadda ardayga markuu galayo waxa dhacda in ardayga asagoo medicine barta oo 2 sano ama 3 sano medicine diganayay in yani doorashadii ay ka khaldanto ama waa lagu foosgareeyay oo family-giisa ku foosgareeyay medicine gal ama business gal baa lagu yiri oo asagu ma rabin hobbigiisa ma ahayn marka wax lagu foosgareeyay hadda waxa dhici karta inuu ama drop out noqdo waxbarashadii noco oo uu ka dhaco yani chapter-ku wuxuu rabay faculty-gu rabay isagoo aan rabin waxa lagu khasbay ogta niyad ahaan uu rabin marka waxyaabahan kula talinay ardayda waxa kamid ah waxa ugu horeeya intaadan faculty-ga qaadan ama jaamacadda aadan dooran marka hore mawduucyada iyo ciwaanada khuseeyaha waxa aad rabtid akhriso gabdhahan waxaan ku dhiirigelinayaa in aqoontooda iyo cilmiga ay leeyihiin ay iska dhex faa'iideystaan ee gabdhaha walahooda yani ay uga faa'iideeyaan waxa dhici karta wax gabadh walaashay garanaysa in anigu aan garanayn inay iga faa'iideyso iyadana waxa aan garanayn uga faa'iideeyay barnaamijyadaas oo kale isna faa'iido leeyahay barnaamijka doorka hablaha ayaanka nolosha